Maxaa dhacay markii ugu horreysay ay kulmeen hogaamiyihii Aflaanta aamusan ee Charles Chaplin iyo Albert Einstein oo hogaamiyey cilmiga adduunka? Haddaba daawade hadday tahay markii ugu horreysay kanaalka soo booqato, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto sidoo kale aad muuqaalka like saarto. Midi wuxuu ku wanaagsanaa dhanka jilliinka oo loo aqoonsan yahay inuu yahay aabiyaha aflaamta casriga ama aflaanta aamusan, halka kalena uu yahay caalim loo aqoonsan yahay kacdoonka cilmiga adduunyada inuu hogaamiye fiican u ahaa. Haddaba labadan cabqari hadalladii ugu horreysay isdhaafsadeen ayaa abuuray saaxiibtinimo mug leh oo muddo sii socota. Kulankoodii ugu horreeyay wuxuu ahaa sanadii 1948 oo ay ku kulmeen xaflad, iyadoo Anderson lagu yaqaanay inaanu inta badan ka qayb galin xafladaha iyo goobaha dadku isugu yimaadaan sababo la xiriira cilmi baarisyadii dhanka sayniska. Haddaba kulankoodii ugu horreeyay, Anderson ayaa hadalka bilaabay wuxuuna yidhi, "Waxa ugu wanaagsan ee aan aflaantaada ugu jecelahay waa inuu yahay mid caalami ah. Dunida oo dhan ayaa ku fahmi karta iyadoon hal eray afkaaga ka soo bixin." Chaplin ayaa ku jawaabay, "Waa runtaa, laakiin adigaa iga caansan. Dunida oo dhan ayaa ku jecel iyadoo aanay cidina ku fahmi karin."